halkani waa London caasimada dalka Britain oo ay isugu soo baxeen dadweyne far badan oo ku dhaqan dalkan Britain oo reer Somaliland maanta oo Sabti oo bishan ay tahay 18 bisha saddexaad sanadka 2023 isku soo baxan oo ay qaban qaabiyeen ururka la yiraahdo UK Somaliland Alliance oo iyagu muddo abaabulayay isku soo baxan oo ay ku tilmaameen u yahay mid nabadeed oo ay ugu tala galeen inay ku taageeraan qarannimada Somaliland ciidanka iyo sidoo kalena in nabad lagu soo dabaalo magaalada Laascaanood soo baxan ayaa wuxuu ahaa mid aad u ballaaran oo u eeka mid u dhacaya qaabkii 18 May iyagoo qof kastoo halkaas yimid uu sitay caalanka Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo sidoo kalena ay siteen hal ku dhigyo qoraal oo ku qoran afka Ingiriisiga oo ay ka mid yihiin kuwan oo ah in lagu soo duulay Somaliland isla markaasina ay kooxo al-shabaab iyo kuwo kale oo huwanay ay soo galeen gobolka Sool dadweynahan ayaa sidoo kalena qaban qaabiyaashu waxa inoo sheegeen in ay hayeen kuwa ka kala yimid guud ahaanba magaalada London iyo magaalooyinka kale ee gobolada Wales iyo England qaabiyaasha oo ka hadlaya arrintaasi ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay sida tan I think it's really significant today that Somalilanders have come together in order not just to kind of express solidarity against the attacks that are happening in Laascaanood, but also to show that Somaliland is a peaceful country. So I think having seen so many protests here, I think today's an opportunity for the wider population of the UK to be able to hear about Somaliland. maanta waxa la isugu yimid waxa weeyaan in la diro baad nabadeed loo diro cid walba gaar ahaan gobolka Sool reer Laascaanood iyo dadkaas oo dhan la yiraahdo walaaltinimada ayaa wax walba ka weyn dad walaalaaba nahay qof maanta halkan joogo oo aan reer Sool wuxuu ahaayay ku lahayn in ma jiro kulligeen waxaan nahay reer Somaliland أحمد وقف ورير UK مقالة لندن كنتي مانتو وحنا هالكن isugu soo baxnay inaanu ka qayb noqono taageerada nabadgelyada iyo xasiloonida iyo midnimada ummadda reer Somaliland meel kasta joogaan baaqana halkan ka tirinaana baaq nabadgelyo in la ilaaliyo nabadgelyada khaasatan gobolka Sool in midnimada la ilaaliyo in wadajirka ummadda reer Somaliland la ilaaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somaliland قول Somaliland قول Somaliland قول ما توحنا هالكن يسووني ما نوجهنا إنه الدنيا وشجنا إن Somaliland under attack تهاي under attack أنا أنودوننا أنه رايلي يقولوا ويا هاي peace نبتقليو أيام دوننا أنه under attack Somaliland أيها هاي حنققبت أيام لنا هاي عدو Somaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan magacaygu waxa weeye waa Naasir waxaan ka socdaa team Somaliland UK Alliance waxaan arintan isku soo qaban qaabinay 2 wiil gudood ka yar waxa kaliya aan isugu nimidna waxay ahayd inaan muujino midnimada iyo in shacabka Somaliland si mida u wada damqadaan halkan cid kasta oo joogta maanta waxay ku matalaysaa reer Laascaanood iyo reer Sool Somaliland waa qaran qabiil maaha sababtaan isugu nimidna halkan waxa weeye inaan codkooda iyo dhibaatadooda la qabno ciidamada huwana ayaa ku soo duushay isugu jirta argagixiso iyo nabadiid iyo cid kastaba sababtay meesha u yimaadeen waxa weeye inay ardayda iyo ciyaalka iyo dhalinyartii meesha joogtay mustaqbalkooda iyo horumarkooda baseejiyaan maanta waxay ka dhigeen kulligood dabadda ayay uga saareen waxay noqdeen darbi jiif waxay noqdeen meelahaas ay xanuuna ku dhaceen halka kuwii sababay nabad la'aantaas ay noqdeen kuwa u soo dalxiis taga Laascaanood dhexdeeda ee sababay ee maanta isku sawiraya Laascaanood dhexdeeda marka insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo cadawga Somaliland biidnillah uu jabaya بسم الله magacaygu waxa weeyaan Aqli Ali Cabdi waxaan halkan u nimi inaanu maxay tahay taageerno oo maxay tahay Laascaanood in ay noqoto nabadgelyo in laga saaro argagixisada inay ku soo noqdaan maatadii ka qaxday in uu dawladdu awoodeeda isticmaasho ciidankana ay ka dhigto maxay tahay xor in ay maxay tahay awoodii ay Laascaanood lahayd oo shacabku dib ugu soo noqon lahaa inay isticmaasho in nabadgelyo laga sameeyo inuu maxay tahay xuduudadeedii aanu helo in ay maxay tahay laga hortago
argagixisada ku soo duulaysa maxay tahay meelaha badan kaga soo duulaysa waddankayaga ayaanu halkan u nimi waxaanu leenahay laascaanood biis waxaanu leenahay laascaanood waa Somaliland waxaanu leenahay waa in xuduudadeeda la sugo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta la dhammaan ka yimid waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan Soomaalina waa salaamayaa Somalilandna waan salaamayaa si gaar ah waxaan leeyahay shaqaaqada ka dhacday laascaanood waa mid ilaahay waa wax ma garanaysaa qornaa waxa qorana lama baajin karo waxaan leeyahay sideedaba dagaalka wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka waxaan leeyahay in aqligu shaqeeyo oo loo soo jeesto nabadda oo dadku ay u soo jeestaan nabadda oo horumarka laga shaqeeyo oo aynu wax qabsi samaysano ayaa loo baahan yahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu alaykum. ummadda reer Soomaaliland halkan isugu timi iyo ummadda Soomaaliland ee meel walba dunida ka nool shucuurteedu maanta waa shucuur aad u kacsan waxaanu taageero u nahay ciidanka qalabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu taageero u nahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo Muuse Biixi Cabdi waxaanu taageero u nahay saddexda gol qaran saddexda xisbi qaran waxa aan halkay u gorortay ee ugu dambeysay nusdambeedka waxa weeye waxaan aad u salaamayaa adna aadan Ismaaciil Allah barakeeyo Allah hal mid baan raacinaya waxaan raacinayaa reer Sool walaalaan waanu wada dhalanay dhul baa naga dhaxeeya dad baa naga dhaxeeya geelashayada wada cabba ceelashayada isku mid ah kala maarmi mayno kala tigmayno kuwa Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigoo ah jaaliyada ka tirsan Birmingham kana imi meel 4 saacadood u jirta London oo aanu imi inaan maxay ciidankayga taageero inaan taageero ciidankayga qaranka soo muujiyo inaan u duceeyo inaan idhaahdo guul iyo gobonnimo waxaan halka salaamayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne horta ilaaha ku daayo jir oo joog nolosha inta ka dhib ilaahay cimriga ku barakeeyo laakiin madaxweyne ciidanka naga fasax naga daa ciidankan marba meel laga soo hujumayo ciidanka siida hubka siida madaxweyne bilees inta soo ka barayna dhammaan qaranka Soomaaliland waa salaamaya ciidanka Soomaaliland waa salaamaya meel kasta ay joogan waxaan leeyahay jir oo jooga reer Soomaaliland meel kasta waxaan leeyahay hambaliyo mar walba guushay naga leh habqina dib haysu taagina hadnixina guul iyo gobonnimo isku duubnaada reer Soomaaliland hal mid noqda Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waxa weeye Kiisi Shofeer waxaan marka ugu horeysa salaamayaa inankan TV-ga ayaan aad u salaamayo waxaan leeyahay hambaliyo inaadeer waxaan si gaar ah u salaamayaa mujtamaca faraha badan ee Soomaaliland ka soo qayb galay mudaharaadka lagu taageerayo ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland hogoliyay aduun baa ku habsaday dushayda miyaan anigu heegay soo haaba kugu yiri kuwaasay maanta qaadayaan jananada ciidanka Soomaaliland ee faranta taagan waxaan si gaar ah u salaamayaa aan mar labaad iyo mar saddexaad salaamaya inamada yaryar ee Jamhuuriyadda qaranka ka tirsan ee ciidamada qaranka jaamacadda ka soo baxay ayaan salaamaya aad iyo aad baan u salaamayaa hablahan sharafta badan ee hareerahayga taagan iyo inamada sharafta badan iyo dhalinyarada qaaliga nabadgeliyo naxariis kortiina haato Well, assalamu alaikum to everyone in Somaliland, especially my president, Musa Biixi. Why are you here today? I'm here to support Somaliland. For peace. Huh? For peace. Peace? Yeah. Lovely.